xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta faraha iskula tagay kadib dood kulul oo dhaxmartay taasoo ka dhalatay xeerka horumarinta wadooyinka. warkaasna waxa hargeysa inooga soo dirtay waa Sagal Mustafa Xasan. waddamarista cashuur kordhinta oo uu dhawaan soo gudbiyay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib soo gudbintaasi xildhibaanadu waxay dood adag oo la ismari waayay ay ka doodayeen muddo 2 cisho ah kaasi oo markii dambe dhaliyay ismaandhaaf iyo gacan saar mudanayaasha dhexdooda ah. waxa xilliga halkan xeerka soo gudbiyay guddiga jaamac ama guddiga arrimaha bulshada shilinka la saaro neefka adhiga isagoo tabajidaaro dib ugu soo noqonaya oo neefka adhiga kuwa wata markay xudanta xoolo ama markay ku soo bedeshaan waa la tumalaamaya. waxaan filayay in xeerkan xukuumaddu iyadoo ku xisaabsanaysa waqtiga shacbigeedu ku jiro iyo baahiyaha dhaqaale xumeyn taagan xeerkani ay maanta ka doodayeen xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu noqonayaa xeerarkii ugu adkaa ee soo mara golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaasina kala qaybiya xildhibaanada golaha wakiilada lamana garan karo lamana saadaalin karo halka uu ku dambeyn doono xeerkani maadaama ay xildhibaanadu gacanta iskula tageen. Sagal Mustafa Xasan Nuur